tan Mareykanka marka ceebaha cajiib kale oo aan ku arkay waxa weeye inta badan waxa laga yaabaa environment-ka ku jirta inuu yahay academic environment Mareykanka oo kale waxa laga yaabaa inaad cidna ku weydiin adoo inaad accent leedahay la arkayo inaan cidna ku weydiin wadanka ka timiyo kale inta badan waxa la dhahaa waxa weeye question of novelty maxaa PhD baa tahay maxaa adduunka soo korinaysaa way su'aasha mar walba kortaada wadankan oo kale waxyaabahan ku jeclaaday waxa kamid ah kaga duwanta wadamadii kale maadaama laga yaabo wadamadan wax ku soo bartay inaan Englishka lagaga hadal marka inaan Englishka ku hadashid ay qiimo weyn ku fadhidaba Mareykanka de waa wadan Englishka of course ay native aad qofku de wii wada yihiin ba marka macna ma sameynayso wax xoog la saaray waa innovation halkan iyada oo bariyahan dambe ay soo badanayaan tirada ardayda Soomaalida ee ku jira waxbarashada jaamacadaha heerka koowaad ee wadamada dibadda sida Mareykanka iyo Yurub ayaa haddana waxaa jirta fahan la'aan guud oo dadka badankooda ka haysata waxa ay PhD-du tahay iyo horumarka ay waxbarashada oo heerkan laga gaadhaa oo horseedo bulshada iyo qofkaba barnaamijkan waxaad ku arki doontaan waxqabadka iyo nolosha maalinlaha ah ee Cabdirashiid oo ah arday Soomaaliyeed oo PhD ka wada jaamacadda Ohio State ee wadankan Mareykanka oo haysaabadu go'ay PhD u doontaan wallahi horta PhD da arinta xiisaha leh waxa PhD horta title maaha inaad qof ma taqaan PhD baan ahay oo qaatay ma aha laakiin waxa ka dambeeya PhD da waxa la yiraahdaa qof inuu aqli badan yahay xataa maaha waa inuu qofka dulqaad badan yahay PhD dana waa inuu jiraa passion oo ma taqaan oo qofku waxaan jecel yahay uu sameynayo dhibaato badan bay leedahay ups and downs badan bay leedahay dulqaad badan bay u baahan tahay hadda anoo kale PhD da waxaan u rabay waxay ahayd geeli aan ku sheegayo 100 halaadaha waxa ka jooga wax ka yar 50 halaad maanta waxaana u dhamaaday waxay ahayd abaarta daba dheeraatay oo cimilada isbedeshay Afrika saameynta ku yeelatay marka livelihoodkii Soomaaliya buu saameyn ku yeeshay mataqaana diqowga hawada transportation kuna waxa weeye waa waxyaabaha keena in cimiladu ay kululaato adduunka cilmi baaristadan waxa ku saabsan sida loo yareyn karo kaarboonka iyo qaabka uu transportation ku mas'uul uga yahay in cimiladu ay kululaataba arinta labaad waxa weeye in waxaan uu leeyahay feasibility wax la qaban karo ma yahay waxaan capacity adiga malada shakhsiyan soo kale anoo kale waxa laga data analytics ka kale inaan ku fiicanahay toolski inaan garanayo data analytics lagu sameeyay marka area-da waxaan isleeyahay okay haddaan mataqaana data noocaas helo access u helo information fiican baan ka heli karaa oo problemka wax lagu xallin karo baan miiska soo saari karaa baad isleedahay marka waxaad eegaysaa shakhsiyan inaad leedahay capacity-ga inaad research questions muhiim ah xallin kadib arintana waa arrin go'aaminaysa in area-da aadid iyo inaan aadin marka wax baarid ku sameeyay arinta saddexaad oo aan isleeyahay xataa toolska ka muhiimsan waxa weeye knowledge-ku sideeda wuxuu ka yimaada reading waa inaad waxa weeye literature review samaysaa waa in mataqaana knowledge-kaaga breadth-ka iyo depth-ga knowledge-kaaga topic aad ku sameynayso waa inuu muddo qaatay oo aad fahansan tahay wax ilaa hadda maxaa waa inaad og tahay cilmiga ilaa hadda maxaa la xaliyay area-da maxaa ilaa hadda aan la xalin halkeebaan waxa weeye halkeebaan advance gareyn kara knowledge xageebaan ka advance gareyn kara knowledge maxay tahay waa entrepreneurship haddaan ku soo kale waxa weeye sidee baan area dadkii kale aan xalin ama la xalin kari waayay aan anigu u xaliya waa inaad mataqaana heshaan niche-ka oo aad identify garaysaa marka inaad isaga identify garaysido heshidba isaguna waxay qaadataa waqti tusaalena waxa kugu fiican hadda aniga 2 years bay igu qaadatay in topiga aan hadda go'aansaday inaan dissertation ka sameeyo inaan go'aankiisa gaaro oo aan ka dhaadhiciyo professorka iyo kale inaan area-da ka shaqeynayo Soomaalida haddaan dhaho ama wadankeena haddaan eego PhD waa loo baahan yahay PhD waxa weeye adduunka maxaa laga hormaray hadda Mareykan iyo China waxa la eegaa waxa la isku qiimeeyaa waxa waaye imisa publication baa la sameeyay competition-ka maanta wuxuu marayaa imisa scientific journals baa wadankan leeyahay imisa paper baa la daabacay area-da laga daabacay soo artificial intelligence maxaa laga daabacay caafimaadka imisa paper baa la daabacay sanadka transportation imisa paper baa la daabacay urban planning imisa paper baa la daabacay
societal problems waxay baa social science ka imsa beber baa la daabacay waxaas oo dhan maxaa weeye waxay ku siinaysaa inaad ka hormartid asaga inaad kaga tagtid competitionka maanta hadda dhex maraya waxa weeye mataqaanaa dominance hadda China iyo American waxa lagu tartamaya waa cilmi human capital waxa lagu tartamaya research because of the research kaagu uu outputkiisu sareeyo macnaheedu waxay ka dhigan tahay problemyo badan wadankaaga yeelana waxa lisay innovationna waa la timi oo wax cusub ku guuleysatay marka anu waxaan aaminsanahay Soomaalida hal PhD uma baahna lama uma baahna saddex ma baahna boqol uma baahna kumanaan bay u baahan tahay meesha kaliya waxa isaga bedeli karana waxa weeye waa in cilmi baaris la sameeyo cilmi baaris taana faa'iidada ka imaanaysa wax kale maaha laba wax waa ka aaminaysa kow research ka samaysay finding ka yimaada ninka policy maker ka oo dawladda ku jira mayorka magaalada ama wasiirka sidee buu isticmaali karaa finding ka yimaada cilmi baarista ilaa ka soo qaad 50 milyan aan dhaho oo dollarka Mareykanka in sanadkii ay soo saartaa Hargeysa mayor baa magaalada ka noqday waxaan u baahanahay marka aan ka tago maanta xafiiska marka qabto konton waxaan rabaa waxaan target baan sameeysanaya waxaan leeyahay 5 sano oo aan mayorka ahay waxaan rabaa inaan GDP-ga ka soo kiciyo konton oo aan gaarsiiyo 120 milyan oo dollarka Mareykanka in GDP-ga per capita uu yahay waxaan responsible isaga dhigayaa inaan mas'uuliyadda qaato maxaan marka u baahanahay research waxaan u baahanahay waxaan eegayaa sectorska GDP generator ka ah waxaan eegayaa service manufacturing saan kale hadii warshadeey leedahay magaaladu waxaan eegayaa service waxaan eegayaa waxbarashada oo kale GDP per capita ay soo saaro healthcare ka GDP per capita uu soo saaro waxaan eegayaa manufacturing hadii uu jiro warshadaha GDP per capita ay soo saaraan culture sector itself GDP generator way GDP-ga ay soo saarto waxaas oo dhan marka problem waxa jira laakiin haysta dadka jaamacadaha Hargeysa kala cilmi baarayaasha jooga yaan grant siinaya grant research sameeyaan leeyahay problemkaas jira sida mataqaana waxaad bixinaysaa fan waxaad ku bixinaysaa marka in dhibaatooyinka ka jira sectorska la xalliyo oo dad cilmi baarayaal oo jaamacadaha localka ah baa empower gareynaysaa marka empower gareysid awood waxaad u siinaysaa ay cilmi baaris ku sameeyaan oo lagu ogaado dhibaatooyinka ka jira meelaha dhaqaaluhu ka soo gali lahaa magaalada arrinta dadkaas waxay keenayaan inay findings helaan maayarku wuxuu u baahan yahay inuu xalliyo tusaale ahaan oo kale in mataqaanaa la soo jiito foreign direct investment si loo soo jiito waxaa la rabaa in la improve gareeyo tusaale ahaan oo kale security-ga waxaa loo baahan yahay in la improve gareeyo mataqaanaa capacity-ga in mataqaanaa human capital baa loo baahan yahay dad wax bartay waxyaabo noocaas oo kale baa reason waa waxay u noqon karaan recommendation bay study u samaynaysaa policy implication bay leedahay maayarku findingkaas qaadanaya findingka ama resultiga ama natiijada ka soo baxday cilmi baarista isagoo isticmaalaya wuxuu isku dayay inuu kiciyo GDP per capita-gii ay Hargeysa lahayd oo meeshii marka waxa laga yaabaa maantay 50 milyan meeshii ay maalintu xafiiska ka inay haddaan targetka la gaar inuu dhaafaba ama inta uu gaar inay gaarsiisan tahay marka waxaan u baahanahay dadka xataa policy makerska Soomaalida ah cilmi baaristu qaab noocaas ay u caawinaysaa marka aqoontu arrinta kale ay sahasho waxa weeye in qofku wax barto hadda jaamacadda Ohio State aan joogo ardayda internationalka markay yimaadaan waxyaabaha course baan qaadanaysaa waxaa lagu barayaa maxay tahay ujeedka in jaamacad loo aadaba ay tahay xataa adigoon PhD ahayn inaad undergrad tahay inaad master tahay waxaad u baahan tahay waxa weeye in aad noqon kartid qof intelligent discussion samayn kara oo aan iska hadlin qof faaruq ah waa in waxa ka hadlayso substantive yahay waa in wax duxle nuxur la u yahay aadan iska hadlin waxaad noqonaysaa qof mataqaanaa aqoontu ay hegto oo edeb leh waxay noqonaysaa qof dhimrintu ay ku badan tahay oo mataqaanaa waxay dhahanin egalitarian view ama haddaan soo taaban kale in la sinaado in dadku ay dad siman yihiin xataa inaad qaabka noocaas u fikirtid Soomaali maantay waxay u baahan tahay dad qabiilka madax bannaan cilmigu waa inuu yahay mid ku bedela adiga waxaan u kala qaybinayaa waxa weeye noloshada maalmeed laba qaybood waa weekdays oo ka bilowda maalinta Isniinta ilaa iyo Jimcada ku eg iyo weekends oo ka bilowda maalinta Sabtida kuna eg Axadda haddaan ku hormaro weekdays-ka waxaan qabtaa noloshada siday tahay inta badan waxa weeye waxaan toosaa waa xilli hore aroorta tusaale kale salaada subax waan u kacaa ilaa 6 kacaa markaan ugu dameeyo kadibna waxaan isu diyaariyaa markaa
balaanka maalinta ay yaala balaankaas inta badan wuxuu ka kooban yahay 3 wax baan ka fikiraa markaas subaxii markaan shaqada aadayo koo waxa weeye koorsooyin aan dhigto oo maadaama PhD student ay 2 sano ugu horeeya wax laga rabaa course work marka 3 koorso 2 course ilaa iyo 4 course baan qaataa semesterkii marka koorsooyinkaas aan maalinta leeyahay baan qorshahooda galaas aan balan gareyn lahaa xilligan gali lahaa arinta labaad aan qorshaheeda gala waxa weeye progress aan ka sameeyay researchkii maadaama aan maalin kasta Arbaca ah laga rabo states update ama weekly report oo ku saabsan dissertation-kayga iyo project-yada aan ka shaqeynayo marka waxa ugu muhiimsan waa ka waxa ugu dambeeya aan ka fikirayo waxa tahay maadaama waxaan u shaqeeyaa qaab ah teaching associate oo lab baan dhigaa maalinta Arbacada ah marka labkii baan diyaariyaa ardadii baan waxaan saxaa assignment-yadii marka yaalay week-ga waxaan jeegreeyaa su'aalaha soo diray email-kayga marka intaanan aaday subaxii shaqada marka 3 wax markaan plan gareeyo ogahay maalinta haddaan maalinta class leeyahay waxay ku darsanaya qorshaha maalinta haddii aan class dhigayo maalinta oo teaching associate ahaan sidiisa aan u shaqeynayo arday lab laga sugiyo qorshaha ku darsadaa haddii aan waqti free ah haysto aan classna galeyn aan classna dhigayna waxaan ka fikiraa wixii laga sugayay oo waxa weeye weekly updateski aan professorka ka siinayo dissertation ka shaqeeyo marka waxaan aadaa departmentiga sideeda wixii ka dambeeyay waa joogaa marka waxa weeye waxaan xoogga saara waxa weeye waa 3 wax oo ka shaqeeya bas 3 maalmood marka maalinta Arbacada oo kale tan soo ku sii waa maalinta kaliya oo laga rabo inaan lab dhigo marka maalintaas oo kale lab baan aadaa 9ka 4 galabnimo wax ka bilowda ilaa 5 iyo bar ku eg 5 iyo 15 daqiiqo qiyaasta hadaan khaldanayn maalinta Arbacada ana wax laga rabaa inaan update professorkii ka siiyo researchkayga iyo meeshaan wax marinayo oo waxa weeye weekly report baa laga rabaa oo dissertation-ka iyo side projects aan ka shaqeynayo labada ah dissertation-kaygana waxa weeye waa cilmi baaris ku saabsan sida loo yareyn karo kaarboonka baabuurta ka yimaada side projects waxaa jira caadiya oo projectyo ka duwan dissertation-kayga aan ka shaqeeyo tusaale ahaan kale waxaan wada cilmi baaris hadda 2 sano socotay oo la xiriiray saameynta wadooyinka baaskiilada ay ku yeeshaan qiimaha guryaha 11 magaalo oo wadankaana marka waxyaabahaas baan update ka bixiyaa inta badan weekii hal mar marka noloshaydu waa nolol noocaas oo ka kooban 3 wax weekdays-ka weekendiga qaabka noloshaydu waxa inta badan wadankan Mareykanka haddaad PhD tahay kama fikiraysid inaad nasatid weekendiga sababtoo ah waxaad email-labaad follow up ku sameynaysaa waan waqtiga ugu badan oo shaqo badan waan isku dayay inaan break qaato 2 maalmood inaan maalinta Sabtida ama maalinta Axadda mid u nasto laakiin ma badna break aan qaadanayo waxa weeye waa baxaa oo kale park baa ii dhow tagaa waan iska soo nastaa cabaar baan soo joogaa asxaabta oo kale dee sida idinkoo kale man marar in la kulmayaan waxa weeye cafe baan iska doontaa marka waxa weeye weekendiga inta badan waxa weeye iyo wixii markaa shaqo ii taalay oo ii qabsoon weeday weekdays-ka baan bartii kasii wadaa tusaale ahaan kale researchkii ama email-laha haddaan ka jawaabiyo well hadda waxa weeye xafiiskayga way meeshaan aan soo galnay waa meeshaan ku sameyno cilmi baarista ardayda ku saxno miiskaaga laabkaan ku diyaarinaano miiskaan way meeshaydu meeshaan fariisto marka waxaad la share garaysaa arday kale la share oo iyaguna PhD marka xafiisku waa meel noocaan oo saan weyn waaye marka qof walba cilmi baaris buu ku sameeyaa qof walba wuxuu leeyahay computeradiisa ku shaqeynayay meesha uu fariisanayay halkaasuu ka shaqeeyaa cilmi baaris ku sameeyaa markaan halkaan fariistaa meeshaan waxa weeye waa xafiiskayga weeye oo qof kasta oo halkan jooga ma waxa uu isaguna the same program ku jira mise different program ku jira ma same program waa isku program baan kulligiyo okay marka ardada xafiiskooda weeye marka sax qofka PhD da diyaarinaya inta badan sida sheegaysa waxa uu noqdaa TA oo ah teacher associate right ama assistant waxaan sidaan filaya taasina waxa weeye in class undergraduate-ka ardayda undergraduate-ka 4 sano hore oo saynaad wax u dhigto marka maadada aad u dhigayso ama buugga aad u dhigayso iyo aqoonta halkeed soo baratay adigu because waxa suurtagal ah inaad mastertii iyo undergraduate-ka hore soo qaaday different school marka halkeed like aqoontaas kale buuggan oo kale dhigaysaa buuggan oo kale halkeed soo baratay adigu maxaa ku saaray dhigto
waxaa ahaa oo su-aal fiican waxaa ii sahlay intaan aadan koorsada dooran sababo badan baa laysugu qaataa ti eega marka professorka la shaqeynaysa waa in ogyahay koorsada in aqoon u leedahay haddii aadan aqoon u lahayn aqoon u leedahay waxay ka dhigantay dhowr nooc marka waxay noqon kartaa inaad koorsadan koorsa la xiriidha inaan soo dhigtay waxay noqon kartaa in cilmi baaris research experience aa leedahay oo koorsadan toolskeeda iyo qaabka loo dhigay inaad cilmi baarista soo samaysay ee la xiriidho marka dhowr nooc bay ku xiran marka aqoon laakiin qofku waa inuu leeyahay wax u dhigaya intaanu koorsada loo dooran loo qaadan u dhigo marka adigu sidaad ku dooratay iminka maadadan oo kale horaad soo qaaday baan jeclay buuggan iyo maadadan horaad soo qaaday ها مادة أنا أقول مادة لفتي exactly ما أنا سوقها واحد سوقها مادة الحريدة وحنا ليه research experience وواحد أرد الله دقيه يعني بيبر عن قرية المبارس عن سميه بامبو استعمالي مركا لبدا صاب أوجد بوحي يقدر إن qualified ونخضو إن عندي كورس هذا مركا كورس هذا واحد المبارس وحنا أرد برينا وحوي سيدا satellite images كلغة آخرية هو ده صار لقى قاضو satellite images سيدا ليدو للصدالنا أبارها دادك urban planning ka waxyaabahaas oo dhan baa loo isticmaalaa marka waa software-kiina waxaan dhigay anu marka way professor-kan lecture ku bixiya aniguna waxaan dhigaa waa software-ki sida loo isticmaalayo waxaa la dhahaa ArcGIS Pro marka waa software-kan way lab buu leeyahay hoose meeshaas ardayda maalinta arbacada aan 1 hour baan leeyahay aan ku baraa buugaan oo labka aan diyaariyaa weekii hal labka halkaan aan ka galnaa marka inta badan ardayda maalinta arbacada bay qaataan labkan كمبيوتر كان اسكا استعمالنا انت بدن مالنت اربعه qof walba uu soo fariistaa meesha marka waxaan sharaxnaa marka week walba waxa weeye hal waxay leeyihiin labkaas aan u sharaxa ardayda laababku maadaama maadadu ay tahay GIS inta badan waxay la xiriiraan waxyaabo kala duwan salahaan oo kale maalin GIS waa Geographic Information System marka inta badan sida loo akhriyo satellite imageska sida imageda ama mapiska loogu isticmaalo in la xaliyo urban issueska ama dhibaatooyinka magaalooyinka sida abaarta daadadka problemyo badan baa lagu xaliyaa oo cajiib cudurrada magaalada epidemiology-ga ahaa cudurrada faafa ee cudurrada sida especially ay u faafaan meelaha ay concentrated ku yihiin meelaha hotspot ay dhahaaniin oo cudurrada ku badan yihiin waxyaabaha marka practical application wax leh way waxaan dhignaa marka waana waxyaabo ardayda hadhow ka caawiyo waxyaabaha ugu badan shaqada hadda Mareykanka markii dadka waliba ka baxa Department of Geography shaqooyinka ugu lacagta badan waxa kamid ah GIS qofkii yaqaan waa skill cajiib oo la barto marka professor-ka soo diyaariyay assignment-ka ama active homework aad qabanaya wax walba professor-ka soo diyaariyay anagu kaliya waxaan waa implement gareynaa marka aad jeeda ardayda oo sharaxaysan waxay shaqadu tahay ima gareeysan ama dhibca ma siisan waan sina anaga saxna professor-ku soo diyaariyay labka markuu soo diyaariyay ardayda anagu waa inaan naqaan labka professor-ku soo diyaariyay ardayda baan u sharaxaynaa labka markaan u sharaxno oo fahansiino ardaydu problem badan bay wajahayaan markay labka sameynayaan wixii ku adkaada bay nala yimaadaan waa ka caawinaa markay labka sameeyaana professor-ku baa wuxuu sameeyaa sample grading wuu saxaa kadibna wuxuu dhahaa qaabka raaca idinku saxa markaasaan ardaydii saxnaa assignment-yada iyo lababkii qabteen computerada marka sever u isticmaalaa ardaydu iyaga u isticmaalaa qof walba marka wuxuu sameynayaa computerka markuu yimaado wuxuu ku furayaa Ohio State ID buu leeyahay anoo kale hadda waxaan ku furanayaa ID-gan u baahanahay markaan ID-ga ku furto waa username-kayga Ohio State si aan u access gareeyo kadibna waxay geli karaan waa ka magacaygii soo baxaya marka access-ka saasaad ugu gelaysaa markaad gashid iyo waxaad furanaysaa demonstration mana siin kartaa imika GIS ama image-ka eegto image-kan ayagana waa in tusi karaa okay waa slow qaadanaya computerkana waa bulusaday marka inta badan waxa weeye software-ki meesha ku jira marka ardaydu isaga gelayaan oo furanayaan صح software ma jaamacadda waxaan soo gelisay jaamacadda soo gelisay waa qaali marka qofku isagu inuu mataqaanaa ay waxay noqonaysaa okay kan badlaad user-kaad u baahan tahay gashanaysaa mad kiisanaysaa kan waa kii aan lahaa already marka isagii un baan isticmaalayaa waan delete gareynay baan u malaynayaa halkaas ay jamee you can log in with I think وعادي